بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نحمده ونستعينك ونتوكل عليك ونصلي ونسلم على رسولنا الكريم الحبيب المصطفى الرحمة الإبداء والنعمة المسداء والسراج المنير الرؤوف الرحيم، وعلى آله وأصحابه الأطهار وأصحابه الأطهار وعلى أتباعه وعلينا وعليكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معالي وزير العدل والشؤون الدستورية، معالي رئيس رابطة مجالس علماء الصومال، والسادة الأجلاء العلماء الأفاضل، وخاصة الذين وفدوا إلينا من مكان بعيد ليشهدوا هذا الحفل الكريم، وأيضا أبناءنا وبناتنا الطلبة الأكارم، أقول لكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فرحad aad iyo aad u weyn ayay ii tahay in aan maanta soo xaadiro majliskan ka mid ah majaalistii nabiga calayhi salaatu wassalaam uu sheegay taxufuhum almalaa'ika wataghshaahum raxma. maxaa yeele waxaa ugu hayaa ilaahay subxaanahu watacaala xuskiisa iyo nebiga calayhi salaatu wassalaam maxabadiisa. waxaan ilaahay subxaanahu watacaala ka baryayaa inuu naga dhigo kuwii raacay jidka nebiga calayhi salaatu wassalaam ee uu ilaahay jeclaaday. in sha allah sida aan adduunyadan ugu kulannayna inaan innagoo isjecel aan ugu kulanno ilaahay agtiisa subxaanahu watacaala fii maqcadi sidqin cinda maliikin muqtadir. runtii waxaan ka bilaabayaa inaan marka hore u hambaliyeeyo ardayda waxbaratay ee baratay weliba culuumta kuwii ugu sharaf badnaa oo cilmiga sharciga ah oo cilmiga diiniga ah, gaar ahaan culuum sunna iyo axaadiisteeda. runtii aad iyo aad baan ugu farxay juhdigaas weyn ee ay qabatay raabitat majaalis alxadiid الnabowi sala allahu calayhi wasalam. waxaa waayadan dambe iska batay oo aad iyo aad u tiro batay in culuumta sharciga ee laga soo qaado culuum aan qiimo lahayn oo dadku waxyaabaha kale isku mashquuliyaan. culuumtii sharcigana loo dhaafay maxaan ku idhaahdaa culuum oo dadku un intay saacado yar bartaan kadibna isaga tagaan. dad badan oo arrimaha diinta ka hadla waxa ay ku bateen dad aanan aqoon diintii u lahayn oo wax rusukh filcilmi aanu lahayn ayay u wateen. marka ama waayadan waxaaba sii ogtihiin inay iska bateen dad culuumtaba ka qaadanaya social mediaha iyo baraha bulshada iyo meelahaas iyo 2 daqiiqo iyo 3 daqiiqo intay mas'alo maqlaan kadibna iska fatwoonaya oo waxay rabaan sheegaya. laakiin inay culuum u fadhiistaa, sanado u fadhiyaa, mutuuntii xifdiyaa, tafsiirkeedii bartaa, maqaasideedii fahmaan, culummo laga qaadanayo sanadkii ay la joogaan. runtii waa wax aad iyo aad u weyn. aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa raabitada iyo ra'iiskeeda sheekh cabdisaciid juhdigaas weyn ee tirada badan ee ay sameeyaan. waxaan runtii aad iyo aad ugu mahadcelinayaa walaalaheenna culummada ah oo sheekh yaasir iyo sheekh muxiidiin oo nooga yimid meel fog si ay u xaadiraan
oo ay u arkaan waxa culimmadan la barayo iyo dadka diinteenna waxa ay baranayaan iyo sunnadii nabiga calayhi salaatu wassalaam matnigii iyo sanadkii iyo sida ay muttasil u yihiin culimmadaana aad iyo aad ayaan ugu mahadcelinayaa markii hore waa ogtihiin cilmigaa loo safrin jiray meel dheera loo aadi jiray laakiin hadda inay cagsiga dhaco oy culimmadii noo soo safarto oo ay halkaas u yimaadaan inay annaga waxna baraan runtii waa isbeddel aad iyo aad ku xoog badan oo aad iyo aad u weyn waxaan kula dardaarmayaa ardadeenna wax baratay iyo culimmadaba inay ogaadaan waddankeenna wuxuu marayaa xaalad isbeddela oo xoog badan dhibaatooyinka nagu dhacayna waxaa ka mid ah in marka hore akhduub lagu sameeyey diintii akhduub lagu sameeyey dad argagixiso ah oo qoryo wato oo wax allaale wixii maqaasidda shareecada ee u timid in la ilaaliyo ee ahayd diintii iyo naftii iyo cirdigii iyo maalkii bannaystay iyagoo weliba nasiib darro magacii diinta ku adeegsana oo haddana duufsaday dadkeennii dad ka mida duufsaday oo wax alla wixii wanaag loo aqoon jiray oo ay ka mid tahay jihaadka oo ay ka mid tahay shahaada fii sabiilillaah oo ay ka mid tahay nusrat almuslimiin oo dhan u adeegsaday inay muslimiintii ku baabi'iyaan marka dadka inaynu dib isaga celinoon isaga xorayno dowladdu waxa ay qaadatay go'aan ah in iska horayntooda aysan ku fillayn keliya in ciidan loo sameeyo iyo in askar iska celisi hub loo keensado laakiin ay u baahan tahay inay culummada hor istaagaan inaan diinno in diinteenna la afduubto sidaan u diidannahay in dalkeenna la afduubto alxamdulilah rabbialcaalamiin meel fiicanay soo gaartay inta dambee dhimanna waa adinkaa biyo raacina insha allah tacaala haddii ilaahay yidhaahdo mana oggolaanayno diinteennana in la afduubto dalkeennana in la afduubto ma oggolaanayno laakiin taas oogama bixi karno ilaa inaan soo saarno culamaa raasikuuna fi lcilm culamaa kala garanaya almuxkam waalmutashaabih culamaa garanaya dadka see loo kulmiyaa ee aan ka fikiraynin dadka see loo khilaafaa culamaa rabbaaniyiin ah oo yucallimuuna alkitaaba wa yudarrisuuna marka waxaan ilaahi subxaana wa tacaala ka baryayaa in aad noqotaan kuwaas waxaa runtii aad ii cajabgeliyey oo aad iyo aad aan raabidada ugu mahadcelinayaa in aanan la iloobin gabdhihiina in culummo laga soo saaro oo la baro muddo badan waad ogtihiin in gabdhaha la iska iloobay gaar ahaan markiiba la soo gaaray in wax la baro haddana markiiba la soo gaaray inay culummo iyo mashaa'ikh ay noqdaan marka mujtamaca isbeddelay ee xoogga badan gurigii buu joogaa carruurteennii buu ku jiraa jidadkii buu taagan yahay marka hooyada iyo gabadha mutacallimadda qayb weyn ayay ka tahay ilaalinta mujtamaca iyo ilaalinta diinteena haddaan intaa ka soo gudbo haddii aan nahay annaga wasaaradda waxbarashada waxa aan horaan halkan uga ballan qaadnay ra-iisul wasaarahan uu halkan ka ballan qaaday in barashada culumta sharciga in barashada qur-aanka kariimka in barashada culumta diiniga ay ka mid tahay waxbarashada dalkeenna ee la aqoonsan yahay inay ka mid tahay markaa raabitadii annaga waa ballannay insha allah tacaala waxaan u kulmi doonnaa sidii duruusta idin barayana manhaj ay u yeelan lahayd iyo shahaadada aad qaadanaysaan siday u noqon lahayd shahaado la aqoonsan yahay oo fursadaha dalkan ka jiro ay qayb oga noqon lahaayeen dadka culummada ah ee aad soo saarteen waan jeclaa in aan joogo xafladda intay ka wada dhammaanayso iyo ardayda shahaadada la siinayo laakiin waajibaad kaleeto darteed ma sii joogi doono laakiin nasiib wanaag waxaa idinla joogo saaxiibkay sheekh xasan macalin maxamuud wasiirka cadaaladda iyo arrimaha dastuurka
oo idinla joogi doona ilaa xafladda ay ka dhammaato shahaadooyinkana la bixiyo mar kale waxaan idin leeyahay ardaydii guulaysatay ee wax baratay waxaan idin leeyahay mabruuk ilaahay subxaanahu wa tacaala ha barakeeyo cilmigiina iyo juhdigiina iyo dadaalkii aad weynayseen in sha allah cilmiga barashadiisana ma dhammaato hal dowlana kuma dhammaato hal shahaadana kuma dhammaato jazaakum allahu khayran wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu